muxuu Alexander Isak kheyri goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League ee uu dhaliyay Liverpool. Weeraryahanka Liverpool Alexander Isak ayaa ka hadlay dareenkiisa kadib guushii 2-1 ay kooxdiisu kaga adkaatay West Ham United kulan ka tirsanaa wareegga 13aad ee horyaalka Premier League. Isak oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri: "Waxaan ogeyn in ku laabashada wadada guusha ay adkaan doonto marka loo eego wixii naga qaldanaa ciyaarihii hore. Aad ayaan ugu faraxsanahay guusha maanta. Sidoo kalena waan ku faraxsanahay inaan dhaliyo gool." Isagoo ka hadlayay qaybtii hore ee kulanka ayuu yiri: "Marka kooxda ay marayso waqtiyo adag, ciyaartu waxay isu bedeshaa dagaal dhab ah. Wiilasha si heer sare ah ay u dadaaleen waxayna muujiyeen dabeecad fiican." Isaga oo ka jawaabaya goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League uu u dhaliyay Liverpool ayuu ku daray: "Waan ogahay inuu goolku waqti igu qaatay. Waxaan isku dayayaa inaan dib u helo qaab ciyaareedkaygii ugu fiicnaa. Weli jidka ayaan ku jiraa laakiin goolkan aad ayuu ii farxad geliyay." Ugu dambeyntii Isak ayaa yiri: "Dareenka ugu wanaagsan waa guusha aan gaarnay. Waa sida ugu fiican ee niyad fiican loogu dhiso kooxda. Anigu weeraryahan baan ahay, sidaas darteed goolasha mar walba waa faa'iido. Waa inaan guushan ka faa'iideysanaa, laakiin sidoo kale waa inaan deganaansho muujiyaa oo aan sii wadaa feejignaanta iyo shaqada adag si aan u ilaalino xawliga wanaagsan." Dhinaca kale, Arne Slot oo sharaxay go'aankii uu kursiga kaydka ku dhigay Mo Salah kulankii West Ham. Tababaraha Liverpool Arne Slot ayaa go'aansaday inuusan safka koowaad ku darin Mohamed Salah kulankii ay Reds 2-1 ugu badiyeen West Ham. Liverpool ayaa ku jirtay xaalad adag iyadoo 9 gool dara ka heshay 12 kulan oo ay ku jirto 4 gool dara oo ay kala kulmeen PSV. Sidoo kalena waxaa 3-1 ku garaacday Nottingham Forest. Slot oo la hadlayay Sky Sports ayaa sharaxay sababta uu Salah u fariisiyay. Kursiga kaydka waxaa ku jira ciyaartoy badan oo kale. Kaliya Mo Salah ma ahan, laakiin waan fahamsanahay sababta aad ii weydiinaysan ayuu yiri. Waxaan ciyaaraynaa 4 kulan 10 maalmood gudahood. Waxaan hayaa ciyaartoy badan oo fiican. Maanta waxaan doortay safkan. Mararka qaar Isak ayaan kaydka dhigaa, mararka qaarna Watts. Waxaan garanayaa in hadalka intiisa badan uu ku saabsan yahay kuwa kaydka ku jira, laakiin sidoo kale wuxuu ku saabsanaan karaa kuwa safka ku bilaabanaya." Fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan u hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.